yeeraynaa kaalinta labaad gabadha gashay waxay ku orday 17 dhibic 95 magaceedu waa Maro Abubakar Cabdullaahi kaalinta labaad gabdhaha dugsiyada waxaan yeeraynaa kaalinta koowaad ee dugsiyada gabadha gashay Cadar Maxamed Bibaye kaalinta koowaad dugsiyada Cadar Maxamed Bibaye haddii aan ku dhaafno tartanka dugsiyada gabdhaha waxaan u filaynaa tartanka gabdhaha kooxaha heerka koowaad 200 mitir kaalinta saddexaad Maryam Nuur Muuse 33.82 Maryam Nuur Muuse kaalinta saddexaad kaalinta labaad gabadha gashay Maryan Xasan Cashi 33.52 ayay ku orday kaalinta labaad Maryan Xasan soo dhawow waxaan halkaan ugu yeeraynaa gabadha gashay kaalinta koowaad kuna caan baxda orodka 200 mitir dalka Amaal Maxamed Bashiir 32.75 ayay ku orday Amaal falyatafadal kaalinta saddexaad ninka magaciisa lagu magacaabo Cabdiraxmaan Ibraahim Cabdiwaxiid 25.65 Cabdiraxmaan Ibraahim Waxiid kaalinta saddexaad ayuu ku sameeyey 25.65 kaalinta labaad 200 mitir ee wiilasha waxaan u yeeraynaa ninka la yiraahdo Xuseen Muxiidiin Maxamed Xuseen yare waa laacib dadaalaya oo soo korayo una baahan in lagu daydo run ahaantii wuxuu muujiyey karti wuxuuna sameeyey saacad ah 22 kaalinta koowaad 200 mitir waxaa ku guulatay Cabdalla Maxamed Xuseen ayuu ku magac dheer yahay waa halyeeyay qaran wuxuu ka soo qayb galay tartamo badan wuxuu soo hooyay bilado kala gedisan wuxuu sameeyay 24 dhibic 58 mitir kaalinta koowaad يجري مستعد في عنا ما شاء الله يعني مع العبد هذا كاlinta saddexaad wiilasha 8 mitir waxaan u yeerayaa halyeeyga kaalinta saddexaad soo galay Ibraahim Axmed Aadan wuxuu ku sameeyay 2 daqiiqo dhibic 50 2
وحانو يلينا كارنتا لما سداد بقولو متر ويلاشا عبد الله بركولو وحكو سميي هل دبيع كنتن يا سقال waxaan yeeraynaa ninka ku guulaystay 800 mitir ee wiilasha maxamed xasan xuseen jini wuxuu sameeyey saacad iska fiican oo aanan dhicin sanadahan dambo jini waxaa leenahay waad mahadsantahay dadaalkaaga sii dheeray wuxuu ku sameeyey 1 daqiiqo dhibic maanta farxad weyn noo ah munaasabadii 26 ama 26 June annagana dhinaceena ka xuseen haddaan nahay hikra iyo bahda atleetikada waxaana leenahay sanad guuro wacan waxaa kaloo haddaan warbixin guud idinka siiyo barnaamijkan waxaa noo soo habeeyey ama soo diyaariyey walaalaheen hirda oo mar walbaba diyaar u ah inay Soomaali kaabaan gobolada iyo degmooyinka iyo magaalo madaxda haddaan nahay xiriirka Soomaaliyeed ciyaaraha fudud waxaan hambalyo gaar ah u direynaa xafiiska muqdisho iyo xafiiska yaala hirda waxaan leenahay waxaa kaloo hadda idinkaga cad waana farxad weyn maanta ii ah maadaama hirda ay madax ka tahay Faadmo Faarax oo qof haween ah intana waxaa fadhiyo haween tiro badan marka waxay tusaynaa ragga baryahan dambe inaan iska celin doono insha Allah waxaan soo dhaweynayaa si uu warbixin kooban nooga siiyo ama ay warbixin kooban nooga siiso oo nala joogta maanta marti nooga ah gudoomiyaha gobolka haweenka Jawaahir joogta oo runtii aniga aan ka mid ahay ka soo qayb galay oo saaxiibaday ah runtii dal joogtana aan dhihi karno macnaha inaan wax wada wadaagno kulley waa la isriixriixayaa baasha laakiin inay nagu soo wareegtaan rajaynayna oo anagu aan noqono muwaadiniinta saxda ah taas waa kaftankii hay-adda hirdo ma aha markii ugu horreyso aan ka soo qayb galo munaasabadan lagu weyneynayo sano qolo walba meel u adeegsanaysa isboortiga runtii farxadna anaga la gelinayso ka haween ahaan waxaan rabaa inaan hambaliyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed hirdana aan ugu hambaliyeeyo dhammaan gobolada dalka meel walba ay ka shaqeeyaan iyo maaragtay meesha ay xarumaha ku leeyihiin waxaan leeyahay hirda ku dayda dadka Soomaaliyeed maaragtay jecel isbedelka iyo horumarka run ahaantiina aniga ka haween ahaan way farxad gelinaysaa ka gobolka Banaadir ahaanna waxay ii tahay farxad way magaaladan waxay ahayd magaaladii 22 sano caqabada ay ka taagnayd burburka uu ka dhacay qabiilka la isku dilay qabiil wax waa ku gaari weynay bal dhanka isboortiga aan u leexano aan horumarka iyo isbedelka u leexano dawlad jacaylkana aan isbarno intaasaan anigu ugu soo jeedinaa ummadda Soomaaliyeed munaasabadan waxaan u dirayaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed anigoo ku hadlaya codkooda waxaan leeyahay hambaliyo munaasabada 26 Juun 27 Juun walaalaheen reer Jabuuti iyo 1 Luulyo oo aan wada sugayno waxaan rajaynayaa inaan farxad kooda qaadano hirda ha noolaataan leeyahay